السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابي إلهي مهدي عنو نوضا إيدينكو نوضا عن مرلبات كلني مسدحات مرفرات ما أنت وحن ربا إن كهدلو topic أو topic أي ضد يسوي ديين كبرنا اللي راعي لصو حريري وحي دهين وحن ربنا وحن وير بيرهدين محايد وحن اللي يرهدو kalsoonida bahasha la yiraahdo baa nagu yar marka qofka hadii uusan kalsoonaysan qofka bilaadanka ah waxyaalo fara badan baa ka xirma kalsoonidu waa very important inaad naftaada ku kalsoonaato inaad soo kalsoonaatid inaad wax walba oo ficil aad sameynaysid aad ku soo bisid wax la yiraahdo kalsooni gabar ayaa waxay ila wadaagtay qiso waxay ugu tiri waxaan rabay in maaragtay adbal maxay kalsoonida igala taliso gabadhaas waxay igu tiri walaalay waxa igu dhacay way tiri maxay ahayd niyad jab wax la yiraahdo niyad jabkaas oo gabadhaani waxay isku dayday dhowr xiriir isku dayday xiriir jacayl inay samaysato inay mustaqbal samaysato inay ma aragtay ay lamaana noqoto oo qof ma aragtay nolosheeda ay isla wadaagaan inay hesho bay aad ugu dadaalaysay waxay tiri arrin walba oon sameeyo oo xiriir waxbaa iga soo dhexgala arrinta bas gabadhaan marka waxaa dhacday maalmaha ka mid iyadoo niyad jabsan oo iyada dhanba qalbigeedu uu jaban yahay bay waxay soo fadhiistay meel maqaayad bay soo fadhiistay gabadha waa 37 jir markaan 37 sano jirtaa waxay tiri maxay ahayd dadka dhan waxaan u maleeyaa in ay og yihiin xaaladayda dadka dhan inay ila socdaan baan u maleeyaa waxaan u maleeyaa tiri qof walba in ay og tahayba xiriirkayga xumaaday jacaylkii iga magaciisiyoobay dadka dhan waxay tiri waxaa wehel ii ahayd tiri markii qof soo fiiriyo inaan dhulku fiiriyo ilaan dhulku waxba idhihi maaye waxay tiri saaxiib la noqday oo kalsoonideedna ay kusoo arortay markii qof indhahay ku dhacaan barbaleenkii aan soo xasuusto inaan hoos fiiris bas hoosta fiirinaysaa qalbigeeda ka shaqaysiinaysaa waxay leedahay maxaa seetan ii qabatay aniga ma anigaa qof xun maxaa igu dhacay xaggee wax ka jiraan maxaa waysaan igu dhacda aniga gabadha aydan waxay noqotay marka confuseka waxa keena baan rabaa inaan halkan ka jawaab celiyo iyo kalsooni darradu waxaan kugu dhacayo oo dhan ujeedid waa sheeko haddaba xiriirkan kaa xumaaday dadkan aad isfahmi weynaysaan waxaan maxay ahayd aan kuu toosaynin waxaasoo dhan waxaa la yidhahdaa sheekay kusoo aroortaa sheekada marka waxaa ka muhiimsan waxa realitigu waa naftaada realitiga kow adiga realitiga number 1 because waxaa tahay qof nool qof shaqaynaya qof mudna leh qof maskax leh qof dareen leh baa tahay marka waxaa la rabaa inaysan kaa xoog badinin waxyaalahan la yiraahdo sheekada malawaal isla hadalku waa malawaal real ma aha isla sheekaysigu waa malawaal waa sheeko waxaasoo dhan sheekaa la yiraahdaa realitiga waxaa qofka adiga oo gabar ama adiga oo wiil baa reality la yiraahdaa because waxaa tahay qof nool waxaa tahay qof dareen leh waxaa tahay qof fikiraya waxaa tahay qof wax diidi kara waxna ogolaan kara marka kalsoonidu waa adiga waxyaalahan aad goconayso oo isleedahay maxaa aniga igu dhacay see wax iga noqdeen xaggee wax ka yimaadeen waay aniga ninkaan isku faham weynaynaa waay aan nin fiican heli lahay waay aan guur heli lahay waxaasoo dhan waxaa la yiraahdaa sheeko history waa waxaasoo dhan laakiin muhiimaddu waa adiga nool oo shaqsiga oo wax ogolaan kara wax diidi kara wax jeclaan kara baa la rabaa in aad isku kalsoonaatid
ood kalsooni la timaado oo tiraahdo aniga waxaan ima qabtaan stop ka gudub ka dhaqaaji aniga arrintan waa inaan ku dhaqaaq samee ficil la imaaw because waxaad tahay qof nool waxaad tahay qof maxay ahayd oo damiir leh waxaad tahay qof jira waxaad tahay qof qurux badan waxaad tahay qof caqli badan waxaa la rabaa taas inaad caqligaaga ka keensato oo isfahansiisid qof kaa fiican in aysan jirin hadday jirtana aysan kaa fiicnayn oo adigu aad fiican tahay 100% kalsoonida qalbigaaga ka timaadaa kalsoonidu qalbigaaga ka timaadaa marka waxaan kugula talinayaa walaalay waxaan kugula talinayaa ha dhibsanin wixii ku soo maray hore uga soco ha because waxaa tahay qof nool waxaan qalbigaaga ku noqnoqonay wax nool ma ahan oo ku dhahay maxaa lagugu nacay muxuu ninkii aad isku fahmi weydeen maxaa jacayl u samaysan weysay maxaa ma aragtay gabadha heblaayo waa la guursaday adiga maxaa kaa qaldan waxaasoo dhan waa story waa sheeko wax jira ma ahan waxa jira waa adiga taa qalbigaaga geli taas qalbigaaga geli waxyaalaha historiga waxaan ku fahmo marmar qofka bani'aadanka ah waa isla sheekaysan karaa way dhacdaa qof walba kaligaa ma ahan qof walba bani'aadan ah way ku dhacdaa qofka hadduu fayl garoobo oo wax u suurtoobi weyso oo ma aragtay hami uu lahaa uu gaari waayo uu isla hadlayaa waa qasab taas waa sharci ka yaala laakiin waxaa la rabaa hadalkaas inuu ahaado mid difaac ah oo naftaada aad difaacaysid oo tiraahdo waxa iga haleysan ma jiraan arrintaas haddii ii suurtoobi weysay waa inaan isku dayaa mid kale waa inaan hami kale samaystaa jacayl for example jacayl baa kaa xumaaday gabadha ma isbarteen ama wiil gabar ba isbarteen wuu kaa xumaanaya jacaylku markuu kaa xumaado ha u joojinin waa shaqayn waa soo maaha haa ka gudub mid kale ka samayso hadduu kuu suurtoobi waayo ha dhihin maxay igu dhacday last minute waxaa ku tegaysaa jacaylkaagii rasmiga ahaa ama kii ilaahay kuu qoray oo calaf gabadha ilaahay calaf kuugu diro ama wiilka alla calaf kuugu diro baad last minute helaysaa laakiin haddii aad tiraahdo arrinta tan maxay ii qabatay maxaa magaciisa isaan heblaayo waa fiican tahay amba hebel uu fiican yahay gabar jecel buu haystaa amba heblaayo wiil jecel bay haysataa waxaas waa sheeko wax jira ma ahan taa ha la iska daayo waa waxyaalaha dadka u horseeda in ay tashwiish iyo problem ku furmo waxaasoo dhan wax shaqaynaya ma ahan ka saar qalbigaaga banaanka dhig waxa rasmi ah waa adiga oo nool oo fikiraya waxaan ku qalbiga aad iska leedahay maxay igu qabatay iyo maxay igu qabatay waxaasoo dhan waa sheeko ka gudub camalkaaga ku dhaqaaq waxaad rabtid oo qalbigaaga kusoo dhaca okay go ahead laakiin haddaa istiraahdo maxay ii qabatay inta maraayada istaagtid aad la sheekaysatid yaa aniga tanaa igu dhacday yaa aniga kan waxaas wax jira ma aha kacooda bileyso ogow inaad qof nool oo damiir leh aad tahay adigu taasaan runta realitiga la sheegayna waa kaas waxaan kala dhan gadaal iska gee marka taladaydu maanta waa intaas ay gabadhu isoo weydiisay tashwiishka sida looga warto tashwiishku waa shaydaan wax walbadan buu kugu soo gambanayaa uu ku leeyahay oo ma qurux badnid haa ma qurux badnid labiskaan ma kusoo bixaysid lagaama helaayo wiilku is leeyahay ma qurxoonid gabdhuhu kuma rabaan waxaasoo dhan waa tashwiish haddaa aragto waxyaalaha noocaas ah stop garee noode waa fiicanahay waa qurux badanahay wiil igama horeeyo waa fiicanahay waa qurux badanahay gabro igama horeyso dhag taa qalbigaaga geli waa ka gudbaysaa barnaamijkii maanta kalsoonida aan uga hadlaynay asxaabey intaas baan kusoo gabagabaynayaa haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe share like waa xaggaaga haddii aad hore noola joogtana share gareeya barnaamijka share gareeya si uu meel dheer u gaaro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.